ergeyga Mareykanka ee geeska Afrika ayaa booqan doona dalka Suudaan toddobaadka soo socda sida uu xaqiijiyay taageerada Mareykanka si uu xaqiijiyo taageerada Mareykanka ee dowladda dalkaasi maalmo kadib markii mas'uuliyiinta Suudaan ay sheegeen inay ka hortageen isku day afgambi sida uu sheegay aqalka cad ee Jimcihii wada hadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdouga iyo la taliyaha amniga qaranka Mareykanka kadib ayaa bayaan ka soo baxay aqalka cad lagu yiri waxa uu Sullivan muujiyay sida uu uga go'an tahay maamulka Biden inay taageeraan dowladda ay hogaaminayaan xubnaha rayidka ah si ay u horseedaan dimuqraadiyadda Suudaan ayna ka soo horjeestaan isku day kasta oo lagu carqaladeynayo ama lagu leexinayo rabitaanka dadka Suudaan wakaalada wararka ee Reuters ayaa qortay in mas'uuliyiinta Suudaan ay sheegeen inay fashiliyeen isku day afgambi talaadadii iyagoo ku eedeeyay dadkii ka dambeeyay afgambigan inay daacad u ahaayeen madaxweynihii xilka laga tuuray ee Umar al-Bashir ayna ku guuldareysteen isku daygii ay ku doonayeen inay kaga leexiyaan kacaankii xukunka ka tuuray sanadkii 2019 una horseeday marxaladda nidaamka dimuqraadiyadda ah waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa markii dambe cambaareeyay afgambigan waxayna ku celiyeen taageerada ay u hayaan dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan